ربا علنكين magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa waxaa habeenkii xalayta ahaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto ee gobolkan Ontario. Xafladan ayaa lagu qabtay hotelka weyn ee loo yaqaan Woodburn Hotel. Xafladan oo ujeedadu ahayd sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay maamul goboleedka Khartoum State of Somalia oo bartamihii sanad lagu qabtay magaalada Taleex, halkaas oo ay ka qayb galeen dad aad u fara badan oo isugu jiray aqoon-yahano, saraakiil iyo uqaal indheer garad ka kala tagay dunida daafeeda si ay bal u eegaan mustaqbalka iyo aayaha saddexda gobol ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Haddaba xafladan oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto ee gobolka Ontario. Dhammaanba waxa ay hoosta ka xariiqeen midnimada ummadda Soomaaliyeed inay tahay tan kaliya ee lagu gaari karo wadajir. sidoo kale dadkan ayaa habeenkii xalayta waxa ay kor u leeyeen calanka buluga ee Soomaaliyeed waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa laga yaabaa inaynu dadku wasaani u wada maqashiisan yihiin marka la yiraahdo Khartoum State of Somalia waxa laga yaabaa dadka qaarna inay u yaqaaniin inuu yahay maamul loo sameeyay dad kale oo Soomaali ah in danahooda lagu lumiyo ama lagaga hortago taana waa mid aan waxba ka jirin sababtoo ah Soomaali haddaynu nahay marka laga yimaado dawladdii u dambeysay ee la oran jiray kacaanka waxa dhacday Soomaali inay burbur ku dhacay Soomaali oo dhan burbur dadka dhaqaalihii عقلي وحي صومالي قلي جرتي يوحي قدي جرتي إن مركلي لوايي ميلا يكودن بيسي وحنا أمسنا هاي ضدك الصومالي ذا هي ولا لماذا وحي كجرتها إن لسكو حق دوره إن ولا البديان كأي دجنت هاي إن المعمول كذا سمايسته أو المعمول كذا أصلا سيدا يضع يربطه من لماذا الصومالي أن اللي يسوي ماذا سيدا أصلا الدولة الصومالية ومدة الصومالية أولاً هاي ay ku samaysanto saasaan ku taageersanahay inay dadkaasi xaq u leeyihiin arrintooda inay maartay maamulkooda ay iyagu samaystaan waxaan kaloo ku taageersanahay maamulka Khartoum wuxuu u taagan yahay diyaarna u yahay habeen iyo maalinba midnimada Soomaaliyeed waxa aynu caawa halkan isugu nimi wati hore la idin sheegay waxa weeyaan sanad guuradii Khartoum bardihii Taleex lagu yagleelay عاونا aynu halka kan sanad guuradeedii ugu xafladaynayno ilaahay waxaan ka baryaynaa in ay tii toosta ee wax qabata way qabatay ee ay halka hore uga sii dhaqaaqdo waxaan rajaynayaa in aynu kumanyaarka sanadood soo socda aynu habeen kasta oo ay taariikhda tan ay soo marto aynu sidaas oo kale aynu ugu xafladayno mahad carabo cali telefishinka Universal Toronto